Assalaamu calaykum. Bari baa waxaa jiray nin boqor ah. Waxa uuna aad u jeclaa ugaarsiga. Maalin isaga oo ugaarsanaya waxa uu leeb ku dhuftay harimacad. Waxa uuna u orday dhinacii harimacadka si uu u hubiyo inuu nool yahay iyo in kale. Balse harimacadkii oo nafyari ku jirta ayaa waxa uu ku soo booday boqorkii. Ninkii shaqaalaha u ahaa boqorka ayaa isla markiiba dilay harimacadkii. Balse nasiib xumo waxaa boqorkii dhaawac ka soo gaadhay farta suulka oo go'day. Ninkii shaqaalaha ahaa markii uu arkay boqorkii oo farta kaliya dhaawac ka soo gaadhay ayuu yidhi, insha Allah waa khayr. Boqorkii oo xanaaqsan ayaa yidhi, waa maxay khayrka aad sheegayso, far dhan ayaaba iga go'day. Waxa uu ugu jawaabay boqorkaygiiyow, wax walba waa amarka Alle waana khayr. Boqorkii isaga oo aad u cadhaysan ayuu ku yidhi ninkii shaqaalaha ahaa, haddii aan hadda ku xiro bal ka baran ma odhan lahayd waa khayr. Ninkii isaga oo aan cabsi ka muuqan ayuu yidhi, haa boqorkaygiiyow, wixii Rabbi ii garto waa khayr. Boqorkii waxa uu amar ku bixiyay in la xidho. Maalin kale ayuu boqorkii ugaarsi aaday, waxaana la socday ilaaliye cusub. Waxaana qabtay koox sanabyada caabuda oo doonayay in ay dilaan boqorka iyo ninkii la socday si ay ilaahyadooda qurbaan ahaan u siiyaan. Boqorku waxaa hortiisa lagu dilay ninkii la socday ee ahaa shaqaalaha cusub. Markii ay doonayeen in ay boqorka dilaan ayaa waxay arkeen in uu farta la'yahay, waxayna isla abgarteen in uu yahay qof aan dhammaystirnayn, sidaas darteedna aanay ilaahyadooda qurbaan ahaan u siin karin wax aan dhammaystirnayn. Waana iska sii daayeen boqorkii. Waxa uuna ku soo laabtay qasrigiisa, wuxuuna amray in la soo daayo ninkii uu xidhay. Waxa uu ugu warramay wixii ku dhacay iyo sidii farta go'nayd Ilaahay ugu badbaadiyay. Waxa kale oo uu ku yidhi, markii farta iga go'day waxaa tidhi waa khayr, waana runtaa oo maanta ayaan arkay, balse markii aan amray in lagu xidho maxaad u tidhi waa khayr. Ninkii shaqaalaha ahaa waxa uu ugu jawaabay, mudane waa khayr, maxaa yeelay haddii aan jeelka ku jiri lahayn adiga ayaan ku raaci lahaa. Kooxdaasi marka ay ina qabato aniga ayay i dili lahaayeen, ileen aniga far ima go'nee. Boqorkii waa uu qoslay oo yidhi, waa run, wax walba waa amarka Alle waana khayr. Dulucda sheekada, wax walba ka filo khayr, wax walba ka rajay khayr, insha Allah.